santahay walaal soo dhawow bal waxaan jeclahay caawinaad warbixin yar na siiso sidii aad Foorifa ku bilowday iyo sidaad noloshaada iyo Foorifa iskugu dhex wado Foorifa ka hor iyo maanta bal waxaa tahay farqiga ku dhaxeeya bal inaad waxoogaa aad iskaga bartaan jecelnahay walaalo maasha Allah magacayga Maryam waaye soo niigu sheegay Leader Cismaan waxaan joogaa wadanka Austria waxaan ka mid ahay dadka fursadan dahabiga ka faa'iideystay maasha Allah qofka igu dhiirigeliyay ama qaabka marka ugu horeysay aan macnaha ganacsigan ku arkay sida aan ku bilaabay ayaa rabaa marka wax yar inaan igaaga sheego qof qaasa ama qof ehelkeyga kamid ah ama qof saaxiibo aan nahay oo igu dhiirigeliyay ganacsigan ma jiro waxaan ka soo raacay maalin aan iska daawanayo YouTube-ka linki la soo dhigay linkigaas aan ka soo raacay maasha Allah gabar ka sheekeynayso ganacsigan faa'iidadiisa lacagihiisa linkiga markaa ka soo raacay maasha Allah group ayuu i keenay groupkii waxaan arkay dad badan ganacsigan ka sheekeynayaan lacagaha qaabka lagu helayo maasha Allah marka ugu horeysa waa rumaysan waayay oo waxay ila noqotay ganacsi si fudud ku bilow si fudud lacag ku hel macquul ila noqoweysay waan guda galay su'aalooyinay weydiinay haddana maan ahayn dad iska aamuso qofka markuu cusub yahay hadduu aamuso inuu de iska hadlo waxa u fiican qofka de inuu hadlo nafiso wixii uu qabana macnaha uu weydiyo aada macnaha groupka uga hadlayay ganacsiga qasaare ma leeyahay waxyaabo badan dadkii macnaha su'aalo weydiinay marka gabadha waxay igu tiri zooma jiro zoomka ka qayb gal anigoo aad u xamaasadaysan oo isdhahay maasha Allah maanta fursadan haday wax daacada ee tahay madax iskugu turbareen ha ka shakinin ayaa waxa ii suurta gashay inaan zoomkii ka qayb qaato sidiinu kala ahaa saana warbixinta loo soo jeedinayo wax xasuustaa Dr. Amina ku qornaa soo jeedinayo aniga u cil qabo dhowr su'aal aan qabo ay gacanta ii taagan tahay waqtigii dhacay su'aalihii waan u heli waayay chance macnaha waqtigii dhacay zoomkii waa leeyahay kor xiray gabadhii igu soo xirtay aan ku laabtay waxaan ku dhahay zoomkii waqti waan u heli waayay su'aalihii macnaha cid aan weydiiyay ma arkin caawana saan kuma seexan karo oo caawa hadaa seexdo de lacag maskaxda ka yareysay qof aan wareysta u baahanahay fursadan iga jaahil bixiyo lacagtan qaabkii lagu heli karo ganacsiga qaabka lagu bilaabayo waxaan run inay yihiin inay dhalanteedin gabadhii waa xasuustaa Leader Cismaan adiga ku soo qabatay hadaa xasuusato maasha Allah Cismaan leegu soo xiray waxa la dhahay gabadhan macnaha su'aalahan ay wadata aga jawaab su'aalaha xitaa weydiinay wallahi waa xasuustaa dhowr su'aal Cismaan weydiiyay waxaan ku dhahay ganacsi kasta walaal qasaaro leeyahay ganacsigina qasaaro ma leeyahay wuu iga qanciyay alaabta wax ka weydiiyay wuu iga qanciyay isla bartaas go'aan ku qaatay mana kama shakinin kaliya xaajigeygan ku soo laabtay waa la tashtay wuxuu yidhahay bal kambaniga anaa ka soo baarayay wax yar iyo rasug marka kambaniga Austria aad ma looga aqoonin wuu soo baaray kadib wuxuu yidhahay cid aan macnaha kambaniga iga information iga siisa waan waayay hadaa galeysana adiga ku jirtaa hadaa iska deenaysana adiga ku jirtaa hadii kulli aa qasaarto adaa meeshaan igiliyahay dhihin markaas waxaan ku dhahay hadii aan faa'iidane lacagta kambaniga ka helo waxa iga weydiiyay loo xasuustaa wuu igu qoslay maasha Allah wuu igu qoslay maasha Allah sidii aan ku bilaabay bishii 6 sodonkeedii aan forever ku soo biiray ganacsigan maasha Allah tabarakallah bishii 6 iibkii ugu horeeyay waan sameeyay labada CC bishii 7 ayaan hooshayda ii bilaabatay dhaxda ayaan xirtay waxaan ku dadaalay sida aan ku soo saari lahaa team adag maasha Allah tabarakallah alaabtiya dalbaday alaabtiya ii timiday mana u maleyneen macnaha si fudud oo kale inay alaabti iigu imaanayso adi waxyaabo waxa iska jiray de subhanallah aan isdhahayay si fudud macnaha ina ganacsigan ku helayo iigu suurtagaleys waxyaabahaas oo dhan ma aaminsaneen bishii 7 dhaxdan xirtay team aan awaawulay saddex qofooda bishii 7 diiwaan geliyay kambaniga la sheer gareeyay u sharxay sideedaad sidoo kale team adaga sameeyay darajadeedii isbedeshay maasha Allah darajadii labaada macnaha galay marka inta badan codadkii hore aan dhageysan jiray marka cusbana waxa maqli jiray marka supervisor noqoto lacagta ugu yar ah qaadanayso waa macnaha lacagta ugu badan ah qaadanayso waa 700 bisha supervisorka marka noqday lacagta ii soo dhacday waxay ahayd 699 eera ii soo dhacday maasha Allah aada ugu sii farxay waxaan ka sii qaaday hamiyaan ka sii qaaday maasha Allah waxaan isdhahay bal waxyaabihii lagu sheegayo dhan waa run hadina waxaan macnaha u sii guda galay darajada 3aad qaabkan ku gaari lahaa markasta dhaxdan xiran jiray maasha Allah tabarakallah anigoo hooyo ah anigoo caruur cunug yar heesto anigoo hadina banaanka 4 saacadood ka shaqeeyo
darajada saddexaad markaan galay lacagta ugu badneed oo ayadan ii soo dhacdo waxay ahayd 1330 darajadaasna waxaan ku maqlay qofka inay u soo dhacdo 1400 maxaa iga dhiman 1330 maasha Allah haddana hooshii halkaasaa kasii waday maasha Allah tiimkeygii yaa xoojinayay tiimkeygii yaa macnaa maasha Allah dhaxda u xirtay waxaa ilaahay ii suurtageliyey managerna inaan gaaro macnaa markaa cusbanay manager ma gaaray sidaa macnaa niyadeydii ku jirtay oo macnaa manager waxa aaminsanaa macnaa waxaan la gaari karin inuu yahay oo macnaa lacagtiisana aad ay u fara badan laakiin markii wixii aan soo guda galay darajo kale markaa bedelayay way ii sii fududaanaysay dhaqaalahaygana bisaraaxa wuu ii sii kordhayay marka aniga shaqo waxaan ka shaqaynayay oo banaanka ah oo 4 saacadood cunuga yar waxaan uga tagan jiray gabar walaashay ah shaqadaas 4 saacadood waxaan ka qaatay 640 eera leega soo diraa bil kasto canshuura leega jiraa wax badan leega jiraa hello walaalo عفوا ران نقل التليفون يسوق قال ما مقلع عثمان ها si fiican maxaa tir lacagta aad ka qaadato shaqada kale ها shaqadii kaleete supervisorka marka ahaa 699 euro marka ii soo dhacday shaqadaana isla bishaas ii soo dhaxday 640 ayaa labadii shaqo isla barbar dhigay macnaha ma baxo cunugeygan iska heystaa forever iskaga shaqeystaa 699 ii soo dhacday 4 saacadoodaan baxaa waan soo shaqeeyaa company-ga wuxuu ii soo diray aan u shaqeeyaa ama shirkadda aan u shaqeeyo waxay ii soo dirtaa 699 macquul way ilaa qaweysay xaajigan ku dhahay bal shaqadan dhibka badan inaan iska daayaa rabaa forever igu filan meeshii aadi waxaa ka sii qaaday xamaasad iyo inaad macnaha shaqadan kala nacaayo iyo ka cagajiidayo waxyaabahaas oo alxamdulillah hadda manager aan noqday shaqada 4 saacadood waan iska yareeyay 2 saacadood kaliya ka dhigtay oo wadankan waayo qofka markuu shaqeeyo oo computerka inuu shaqeeyo sharaf badan yahay raan naqdo wicitaankeyga marka alxamdulillah ilaahay wuxuu ii suurtageliyay inaan manager noqday alxamdulillah bishaan dhaqaalaha ii soo dhacay markaa managerka noqday inta ka horeysa waxaan ka maqli jiray gabadha iga sareysa manageradeeda mar inay mar manager haddaa lugta geliso dhaqaalaha u yar aad qaadanayso ila Usmaan kayr gogaya ha wala soo garaaca صح leaderkayga waxaan ka maqli jiray baa halkaas inoo maras leaderdeeda waxaa ka maqli jiray manager markaa tagto lacagta ugu yar aad qaadanaysa marina waa 2000 marka macquul meela ahaan jiran 2000 ma waligayba kuma riyoonin lacag 2000 inay isoo gasho waxaan ahaa hooyo guriga iska joogto waxaa laga yaabaa bishan markay lacagta isoo gasho 5 cisho inaynan lacagtiba aan haynin ee ii kala babaxdo waligay Yurub qurbo waxaan joogaa 8 sano waligay qof macnaa dhaqaale meel dhigtaa forever ka hor maanan ahayn wallahi inaana been sheegin forever ka hor weligay qof maanta hal eera u yar meel dhigta maan ahayn wadankan eera laga isticmaala alxamdulillah hadda ilaahay wuxuu ii saqiray markuu macnaa guriga macnaa wax yar si ay ka noqdaan ama xaajigo kale shaqo la'aan markuu noqdo kale ina anigi qofkii guriga furdaaminay ina aniga noqdo aadana wallahi ugu faraxsanahay inay keedadkeygii bataan in lacagaha Soomaaliya iyo Imaaraadka oo dhan macnaa hooyo lagu diro hooyo keed ii noqoto inta dhaxdeeda dhowr keed aan ku haysto alxamdulillah marka hadda waxa dhigi karaa Usmaan markaa forever ku soo biiray nolosheyda aad ay isku bedeshay shalay iyo maanta farqi aad u weyn macnaa aan ahaan dareema ma sha Allah waana ku qanacsanahay inaan company-gan ka mid noqdo inaan haddana next goal waxaan rajeynayaa inaan macnaa laba manager soo saaro darajada kale senior manager u gudbo inaan gaarigi aan ku guuleysto oo aan diyaariyo ma sha Allah hamigaas iyo hami ka sareeya leeyahay qofkana hadduu hami leeyahay hamigiisa mar uu gaari karaa qofka waxa waay inuu bilaabo kaliya looga baahan yahay laakiin adi wixii hadaadan bilaabin wixii ma gaari kartid soo maahan waxaan waa ganacsina rasuulka calayhi salaatu wasalaam barakeeyay waa bilow asta isdhameystiray qofka marka wixii hadduu bilaabo jaanis wuxuu heli karaa macnaa inuu wixii macnaa uu sii dhameystiro qofkan hadduu go'aan leeyahay go'aankiisii wuu ka mira dhalin karaa ani taas aaminsanahay marka dad badan hata waxaa macnaha jiro dhahaayo macnaha ganacsigan macnaha ka shakinayo ama si niyadooda dhahaayo ganacsigan waa macnaha ganacsi qofka bilaabi karo
tijaabin karo hadduusan qancinna uu bartaas kaga hari karo oo la dhehaynin maxaa micnaha oga hartay aan la dhehaynin aan la soo dabraacaynin marka insha Allah intaasaa warkan igugu soo koobaya walaalahayga qaaliga waxaana nii rajeyn doonaa inaad fursadan ka faa'iidaysataan saa anigoo famil ahba aga faa'iidaystay insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام aad baad mahadsantahay leader ma sha Allah dhiirigelintaada taladaada iyo waanadaadaba aad iyo aad baan runtii walaalo aad ugu mahadsantahay hal su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo hooyooyinka kula midka ah ee ku dhageysanaya hadda laga yaabo inaad isku xaalad tihiin qurbaha kula jooga maxaa dhihi lahayd walaalaha qurbaha jooga sidaadoo kale runtii aan fahansanayn fursadani laakiin ka faa'iidaysan kara bal tala ahaan iyaga maxaad u soo jeedin lahayd tala ahaan waxaan usoo jeedin lahaa horta qof kastoo maanta dumar ah rag horta meeshaas ii dhig qof kastoo dumar ah maanta ani ila mid ah maanta hooyo ah waxaan ku waanin lahaa waliba aan ku sii dhiirigelin lahaa aan ku adkeyn lahaa fursadan inaysan dayicin ay ka faa'iidaystaan waayo waan dareemi karaa dad badan hadda waxay aaminsan yihiin qofka markuu qurbo joogo noloshiisa inay isku kor saaran tahay aysan waxba ka maqnaynin laakiin taas dadka micnaha dee Yurub jooga kaliya dareemi karo marka qofka hadduu micnaha u baahan yahay inuu dhaqaalo micnaha safe gareysto ama inuu maanta wax meel dhigto ama inuu noloshiisa isbedel dhaba uu dareemo fursadan ha ka faa'iidaysto ani shalay iyo maanta farqi aad u weyn ay dhaxeeyo heer hadda aniga maanta wallahi waxaan taaganahay gurigeyga aan quruxsado gurigeyga waxyaabo badan aan ka bedelo aan maanta nolosheyda aan maasha Allah aan ku farxi karo heer waxaan taaganahay qof kasto maanta ii yaqaanay oo idaho maasha Allah Maryan waxay ku mashquulsan tahay ganacsi Maryan waxay u soo jeesatay horumar qof kasto idaho maasha Allah tabarakallah marka walaalahayga Soomaaliyeed gabar kasto maanta ani ila mid ah hooyo ah waxaan ku waaninayaa fursadan ha ka shakin fursadan waa tii kor ku qaadi lahayd waa tii micnaha horumar ku gaarsiin lahayd waa ka faa'iidi doontaa wax badan waana xasuusan doontaa hadalkayga aniga oga faa'iidaystay aniga aadan oga faa'iidaystay fursada waxyaabo badan aad iiga caabisay xaalado badan nololeed oo aad igaaga cakirnaa way iga furtaamisay xagga nolosha micnaha ma ahayn qof maanta micnaha meel wax dhigto qof maanta ma ahayn dee micnaha nolosheedii hadda heer waxaa taaganahay dee markaa maanta meel kasta aan tago qof isfurtaami kara inaan micnaha ahay alxamdulillah taasna waa ku faraxsanahay maasha Allah tabaarakallah walaalay igu soo caabiyey leader Cusmaan uu kamid yahay aad iyo aad micnaha oga mahad celinaa insha Allah gabar kastana waa inay fursadan ka faa'iidaysataa ee san dayicin insha Allah ما شاء الله تبارك الله يا أبد وما هالسنتهاي وراشي الله كحفتيو جزاكم الله خير جزاكم الله هاي وانا